وقيبتي اللبات برشادة موضوع الجود برشادة محوها قيبها كلا دوغانا MS Excel قيبتا waxaan ku baranaynaa rows iyo columns waxa la dhaho marka office Excel markuu sida kugu furan yahay waxaad arkaysaa qaybaha sare sida u jiifa oo jooga taagan qaybahan qaybaha ana sida qaybaha sida u taagan waxa la dhahaa columns la dhahaa qaybahan sidan iyagana jiifka qaybahan waxa la dhahaa rows la dhahaa marka row iyo column meesha iskugu imaadaan iskaga imaadaan column kan oo kale tusaale halkan ka soo bilaaba column kan iyo rowga tusaaleaan rowgan meesha iskaga imaanayaan isaga dhacayaan hadii jeer yaa waxaa la dhahaa cells kan hore u soo badanaa cashirka hore aan ku soo baranay cells halkaas la dhahaa cells halkaas la dhahaa marka rowska iyo column-ka waxay leeyihiin waxa la dhaho columns waxay leeyihiin column heading kooda waxa weeyaan xarfaha alifbeetada ba'ta maxay ABCD ayaa noqonaya column heading kooda la dhahaa rowskana ayagana row heading waxa la dhahay leeyihiin row heading kooda waa ka waxa weeyaan lambaradaas so hadii lagu dhaho marka row 1 column 1 wax ku qor waxay noqonaysaa rowga koowaad waa kana maxaan ka wadaa column-ka koowaad waa kana rowga koowaadna waa kana halkaas weeyaan marka waa cell haddii aan dhahno column 5 row 10 column 5 wuxuu noqonayaa waa column-ka shanaad ee 1 2 3 4 5 6 shan waa kana waa weeyaan halkaa eeda ku qoran lambarka xarafka ku qoran row 10 haddaan dhahno lambarka 10 ma aadayna row halkan aan imaanayna 10 waa ka marka 10 iyo xagee isaga dhacaan halkan iidaasan soo raacaya halkan aan imaanaya 10 waa ka halka weeyaan so halkaas wax ku qoran waxa weeyaan waa column-ka shanaad rowga muxuu ahaa tobanaad taasoo lamid oo la micno cell-kan macnaha cell E10 weeyaan marka cell E10 weeyaan laakiin markaan guud ahaan uga hadlayno halka waxaan leenahay guud ahaan markaan sida kaga hadlayno waa column soo saaw dheer markaan row ahaan ka hadlayno sida u dheer row baan leenahay marka sida u kala fahan row iyo column waxay kala yihiin halkaas ku soo gabagabeynaya qaybtan. Assalaamu calaykum.